عليكم السلام قولي قولي بك كسب حي هيا مدح ويل كعسين هيا وحي أنت دوّدين الشيك شيقيني يلا روح على نسحني جوحي هيا حريتو إسلام تيجي مدح عن يسلك واقرت وبس بال نوبري حاس كويسة وحل يسكو هيني إسلام وحي بي مقاش اللي وقفت مره هيا وحي بيدلك هديقات هيا waxay ku leedahay maalinta joog guriga maalinta joog anigu waan baxaya habeenkii ay igu soo guuray war waxana ila tin kowdi هيا gacantu ma lanaysa saari كم حي كلها waxay diidan tahay waxay ku leedahay habeenkii aniga hataa ii timaado de wixii la sheegay يا كو حق قدبين هذا حق قدبين دي maxay يا gabadha ku xaq gudbin ma xad gudbin ku xaq gudbin hadda maxay ka hadlaysaa xaq gudbin bay ka carsaa ku xaq gudbin anigu hawl baan haystaa waa kaale ma xad walaal ku xaq gudbin waxan waa dumar waa maato ku xaq gudbin dadkana meel kaga dhici warta ma waxan ku leeyahay bisad warso tan la baraaray ma waa ninkan waqti caadina way caadina ma haynu sidii ومحaan weydiinay imika bal miyaan soo bar noqonay imika talo wareede wariya waxaan ku weydiiyey wani waxaan ku wuri dagaaladii bariga dhexe ma sii xumaanayaan baa leeyahay shirab mar dambe ahaan miyaad wadaad hay war maxaad leedahay war miyaad shiikh hayn haddaan hay sheekh maxaan ku wuri oo maxaa siyaasadda ku geliyey bariga dhexe oo siyaasadda gale maxay waryahay malaa qof aan caadi ahayn baa tahay shiikhnimadaad miyaan kuugu yimi heyna adeer sheekhnimo waxbaan ku aniga imika maxaad yeeshataa waa khalad in adeer waxaa siiyey maxaa qalada waxaad yeeshaa maxaa qalada mar dambe waxba hay weydii siyaasad baad gashay siyaasaddana anuun baa la i weydiiyaa oo aqaan oo maxaan galay inaad siyaasadda ku weydiin waxba kuma weydiinay waxaan ku weydiiyaa nimad garanay war nin wadaada baa tahay diinta war miyaad xaqa aqoon oo diinta aqoon mee waan aqaanaa diinta wixii diinida ugu qaalisanaa baad haysaa kitaabkaa ugu qaalisan adduunka haddaan hayana maxaan sameeyey maxaan ku wuri markaa miyaad akhrisan maxaa siyaasadda yara diniiqa ah ee anigu uun aan aqaan aad u soo faragelinaysaa warniya waxa dunida la isugu haystaa waxaa soo miidhan wareede waa bal stejiniyow maya istaji aan odhane hawshaada wadaniyow iyo kitaabkaaga soo wacdi masaajidada wacdi dadka ka wacdi oo maxaan ku wuri dee waxaad siyaasad baad gashay dee ma gelin siyaasadda maxaan ku wuri waxaan ku wuri bal horta ibli faasi maxaan ku wuri aniga dee mooye maxaad i weydiisay war waxaan ku wuri dagaaladii bariga dhexe waryaahe bari dhexe lahaana war ma kuu sheega warniyow shaqada waryaahe maxaa inaader barigan dhexe iyo waxaanaad ka hadlaysaa waxay waa siyaasad waa anney waa wax aan waxay yihiin jirin bal inaader kitaabkii ilaahay baad waryaahe say kaa taha dee caadi ba inaad ahay maxaa jira inaad orodoo masaajidada dadka ka wacdi oo waxa xun dadka ka wacdi oo kitaabka adduunka u sarreeyay kii u sarreeyay baad haysaaye han nagu soo faragelin annaga bariga dhexe iyo siyaasadda iyo wax howlaha iyagan war waxaan ku weydiiyey ma garanaysid bal ma inaad orodoo niyo haddaba waxaan ku weydiiyey meeshuu masaajid baa orod kalaanka ilaahay meelaha ka mari annaydan yara diniiqda aan anagu haysana han nagu soo weerarin eeginaade inaad waa dagaalasantay horta steji ma dagaal dee waxaan ka dagaalamay eeg waxaadan shaqo hawl aan shaqo ku lahayn ayaad inaad ergashay haddaba garanaysaa markaa siyaasadda iyo waxaa heedhe aniga i weydii oo waxaad igu tidhaahaa war bal siyaasadda ka warran adigana aan xagga diinta ku weydiiyo wadayaan shaqo weerar dhici inaadan ismalay waxaa dhigtay bal noo waayo bal nooga sheeg siyaasadda sheegta waa nacma dee haddaa lagu qaatay soo shiikh waa yaabee siyaasadda waxaa weeye anigu horta nin siyaasiya baan haye siyaasadda meeshaan ka gaadhayna meeqaanka aan ka gaadhay haye nin ka gaadhay waa yidhi waan gartay waxaa weeye qarka goonan haydh ma maqasha haddii laba quruumood qalabka isu haystaan haddii ay laba qolo ay dee iska hor yimaadaan oo qalabka isu haystaan haddii loo saaro guddi arrintaa ka shaqayso oo qaybta ee hadda waa meesha oo dabadeedna dee qalin yimaado eeg wixii oo aanay hagaajintii ma garanaysaa iyagoo aan dee gartii meesha tiile qaadin haddii ay si qaab xun oo aan si ahayn ay qalin ugu saxeexaan eeg inaadeer dee qalalaasa mooyaane
nabad dee lama qorshayn oo lama gelin ama siyaasadda ana tii haa wata bariga dhexe aan kaaga warramaya iminka war waan maqlay taase ma siyaasad ma ahayn maxaad maqashay ma arrintan iminka kuu sheegaad maqashay inaadan maad maqline waa arrimaha bariga dhexe ayaan kaaga warramayaa fahmaysaa maaragtay meesha lagu yidhaho kuuba bariga dhexe sheekadiisa haddii dee malaa aad baan u fahmayn horta qofku haddaan dee meesha aqoon siyaasadeed oo badan lahayn waxyaalo badan buu la fajacaya haye meesha lagu yidhaho kuuba soo ma adag kuba maqasha kuba haa jeelka adduunka ugu weyn baa ka dhisan haye 60 sannadood buu haystay ninka siyaasiga ah ee haystay madaxweynenimada haye waa meel la yaabaho waa istiraaji haye iyadu beri dhawato oo isku yar buuqday oo iyana buuqbaado laakiin waa la dejiyey haye waxaa kaloo jirta meesha lagu yidhaahdo China haye ganacsi badan buu keenaa oo dhulka mariya haye markaa siyaasadiisu siyaasadda anigu aan hayo caalamkay ku baahsan tahay oo adduunkoo dhan salaamu calaykum salaamu calaykum alaykum salaam warba siyaasaddan inaad raynaa denigaday waa soo fadhiista siyaasad maxay waxa weeye markaa siyaasadda inaade waa khiyaano iyo waxaan sheekh salaamu calaykum alaykum salaam yey nimankan xaggaad usoo arrimo siyaasaddan kaaga warramayo walaal waar inaade xagaad sawtana la soo dhaweynayo sheekhaan uu nimiye sheekh miyaad ka soo dhaweynaysaa cid walba ilaa arrin baynu ka hadlaynay waa sheekhu waa sheekhi dadka ilaahay wuxuu sheegay weynoo yimaadeen nimanka hadda balukaadi maaru dad islaama baynu noo xagaad sheekh waf duubaysaa sheekh sheekhow anaa waxay baanu idinla socono niyo aan idinkala maarmi weyn haye watana baarlamaanku waxa la ayaamo dhow wax buu yara sixiyey haye qodob kufsi iyo wax ku shaqale waa adiga dad siyaas sheeganay dad islaama waynu waaga xeerka kufsiga iyo waxaan lagu ashriixiyey waxa ku jirta inantaada haddaad bixiso nimaanay ka raalli ahayn siiso way ku soo dacweyn kartaa waxa ku jirta islaantaada haddii iyadoo aanan ka raalli ahayn aad subaxii way ku soo dacweynaysaa waxa ku jirta ninka sikhraansan isagu ma aha dembiile haddii ay ku caddaato inuu sikhraansanaa kii ka iibiyaa dembile waxa ku jirta 18 jir war u soo gaabin karo waxa kufsiga ka waran kufsiga ka warraynaad kufsiga ka war horta inaad kufsiga dem waxa la yiri si caadi ah laga dhigo limberigi hore horta kufsiga waxaan ka maqlay jiray geesiraha inan buu kufsaday halkii berigi hebelinta ku kufsaday dee kufsigaaba ma aha kiiba adigu iyo qodobo dabaya waa kufsi aad kufsi marka ma waxa la yiri hal iswada kufsaday maya waryaare warta sadiga siyaasiga sheeganay ee waan siyaasi waxa weeye sigan garan waad soo geli waa gabadhan iyo gabadhan yaa rimaheedu mataad qabto iyo waryaa wani dhuunkodane baarlamaanka ansixiyey imikana dib baa loo yar dhigay waa la leeyahay laakiin wuu ansaxaya maxaa ka warran maxaad ka warran bal taas bal ka war waxa la yidhi ninka gabadhiisu waa kufsi haddii uu yar qasay habeenkii gabadha lagu marka maxaa dee horta kufsi haddana gurigu hadduu xulan yahay سيد نطبعا نقطة دموج ملاو ومحمد كلا يسكب سنة وعيارون war barbaarlamaanka inay ka waran iyo dadkii ka waran in aasixiyo waxan wallahi inaad u heedhe madaxweynuhu ma loo moogi madaxweynuhu timee war hayna timee loo sheegay tee maxay kufsi wallahi war uma hayo war soo tilal hama ham dadku lahaayeen meel walba waa handaraabay halka miyaa xuma handaraab way dee waa handaraab baa leeyahay muxuu qabo waan adeer handaraabka laftiisa fahmina waayina dadku ma naan marka magaalada jaan madaxweynaha meel baa nagu handaraabay waa muuse handaraab Soomaaliya waan maqlay wallahi dad hor fadhiyaan baa adeer waxa weeye ninkan markii la doortay wuxuu yimid iyadoo meel walba albaab ku furan yahay haye hantidii ummaddu yaroo iska soconaysa haye qaar la cunayo qaar la qaatay qaar si kale la yiri haye markii uu siibay beeshiiba uu handaraabay haye hantidii dadka adeer uu qabtay haye marka ma dadka qaar baa shilin lama cuni kara buu maarba waa saaxiib alaam si kale baa lagu ma dad inaad ilin waxba la fahmay ma dadka qaar baa mise waa dadkii wax cuni jiray oo dhan buu ka handaraabay hantidii qaranka wuu hayaa waa tan la leeyahay macal dhulkii waa la soo celinaya haamihii waa ka soo celiyey qaar kale wuu soo celinaya tukarraq waa ka xuduudkii xidhay dagaalka markii xuduudina waa furay meel walba saas uu soo xidhay waar ninkan wixii wariyaahe handaraabka nabaanu faham war ma kuu sheegay anagu handaraabka wax ka hadli mayno wariyaahe arrintan maxaa shiikhow
arrinta noocaasa maanta waxaan kuula nimi siyaasadda balooga والله هو الفهم لأن أنا ضرب كانوا من راح فينا بدي سماه كاسوا ناس مدحونه وكفر حي وابا مدحونه كوباد ومد وحدي وحده السعودية وحي مقلالة الله ورياه هو مدحونه دبع واروض كودي وكوها يعني مدحونه أنا ما حكيت أنا قولي بس إني سياسي وحيد نكال نرتب عن سياسي أسباب وما كان السياسة فك شكاين الشيء ويفوق ما أقول السياسة مستقبل والله السياسة لو تاسيم كنا بري دحان وش كاين يو شينا يو سيدا طبعا شيء غو أرنتنا ما أنت وضنا كنا ما لبط السما قسكي أرنتنا ما أنت وضنا أدوات مقش ولماذا ما حي كقبتها دينتين السما حي كقبتها يعني دينتين ما أقرأ دينتين ما أقرأ دينتين أيه waayo dadku imika arrinkan imika la sheegayo la marinayo waxay diinteena banaysay maaha waaye culimmadana ka fadhiisanaysa arrinkan haye culimmada ayaan imika arrinkan ka fadhiisanaysa oo ka hadlaysa dimuqraadiyadda ka war warna inta dimuqraadiyad waa diin baa ka hadlayna war diin baa laga hadlayaa shiikhow ma waxaad tidhi culimmadii way ka fadhiisanaysaa arrintan maanta halkeedii bay maraysaa way ka fadhiisanaysaa culimmadu haye waxay diinteena banayn ما شفتو صوتي اللي مدحدينا أداع وحي كان ولا أداعي ورنتي ولا أداعي مدحدينا لكن ده وحويان ماشي حتى الله واحد دينتنا بنين لما وقلت ده ها مدحوينا واحد كنت يدي كرتا واحد دينتو بنين واحد دينتنا بنين أنتي كلمة تودي أنت كلمة تودي عيسى بتكور من الصاون شيخو تمركز شيخة وديمقراطية شيخ ورياه ديمقراطية سكرين هذا ديمقراطية ده كور منين دول ما ما ينام كدين بنهينا دين بنهينا ودي شيخو ما بنين سوما ما بنين وحاس مسلمين ما بن دولة إسلامية هو قوة لما لهين وإسكا يبي ديمقراطية وحلا يقول ونستيه والمركز الإسلامي أود ولي أود أقول بالله يا هذا وقت مركز هوري إن الدين تفهمتها بروح بدن بس إن تفهمتها شيخو أيوة بروح بدن لا أدري كلمة وارهده أديكم اليوم ولود بدني ده قبل بدني بالك هذا نكنا وسجع ورتا دي ورتا إنه وتاه أنا ودي تلون ولا هاي سناية شيخو قفك مسلم كاهي وقفك وجو أول طبعا قفك قال وجهي ما هينكروا مركز ضعيف بي وحنا هوراني هذا واردينا أنا قلت ديته وحنا كبشة ديته أنا مفرق لي لكن تتكين المعركة ما قالش واحد علماني تتبدلوا علماني هذا الكشوجة علماني صبر علماني علماني واحد لا هذا وطن لا سياسة وتقرأ قلبك وحبري لا هذا علماني ورثني كان حبوب ورياه إني جيسين هذا ورشيخه ما بنين دينتو ما بنين سوما ما بنين دينتو إذا كان علماء أو دينتو بفرنا علماء ده هتبقى أنت أنا قلت لك يا شعبك ما أنت هدي هالكيني قاعدين في ناس أنا قلت بفرنا حكومتك كهلا وحصوص صار كدودة علماء أنا أقول علماء أنا مسن وحين هرت دينتنا بنين مرنا إن نكون قنو أما كنا أغنى ما بس وأخوي صديق ما برد ديمقراطية برد ما هنا وهذا البريق اللي حصل سياسة وبين يوم ماسق يوحنا تري قفرتي وروحان أنت تشاري خرجك يجب حياة يجب حياة خرجك يجب حياة أباه خرجك يجب حياة سياسي برد الدين تبرقت سدوس لها سياسي برد الدين تبرقت قبل لك ماشي هو يبرأ الله يرحمه لكن سياسة صديقنا هو يضع حكم هاي أورنتي إنا لله وإنا إليه أورنتي ويذا حوجتي كان سادو درده وحب برتو ولا برد لك ولا هو يسكر ولا شيء هو يضع ما يفاني ما يا الله حيتري الله يا لماذا لو ضاف